15 calaamadood oo lagu garto dumarka liita ama qiimaha hooseeya. Dumarka qiimaha hooseeya ma aha kuwa muuqaal ahaan iyo qoys ahaanba u wanaagsan, waa kuwa aan lamaanahooda iyo noloshoodaba haysan karin waqti dheer oo markasta waa uu ka burburaa qoys kasta oo ay yagaleelaan. Qiimaynta aan halkan ku soo gudbinayno waa noocyada xirfadda iyo sifooyinka ay miiska soo saarayaan dumarkaasi, kuwaasi oo si cad u muujinaya tayadooda qofnimo ee liidata. Calaamadahan aan idin soo gudbinayno waa kuwa si cad kuugu muujinaya haddii aad isku dhex aragtana in ay shakhsiyadaadu hooseyso muujinaya, loona baahan yahay in aad kor isku soo qaaddo. Horaa loo yidhi koritaanka qofku waxa uu ka yimaadaa daacadnimadiisa, yacni in aanu naftiisa khiyaamin, halka hooseyn aanu ku eegan marka uu isku arko. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena oo aan kaga hadli doono 15 calaamadood oo lagu garto dumarka qiimahoodu hooseeyo ama liito. Salaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada. Marka hore, qodobka koowaad waxa uu noqonayaa si dhalanteeda ayuu dareenkooda ugu sheegayaa in ay qiimo sareyso. Dumarkani waxay mar walba sheegaan in ay yihiin haween xoog leh oo madax bannaan oo guurkana ka faana ama aan guursanin. Ikhtiyaarka ah in ay ragga cabsi geliyaan ayay naftooda ka aaminsan yihiin, balse ragga qiimaha sareeya waa ay ka fogaadaan dumarka noocan ah, sababta oo ah waxay badanka dhahaan nin muxuu taraa, ninku muxuu igu soo kordhinayaa, iyo waxyaabo la mid ah. Waa kuwo aad iskula qabweyn oo dhulka in la eg aan socon karin, isqaadqaadkooduna uu aad u badan yahay. Waxba ay ku nool yihiin duni iyo dhul khiyaali ah. Qaar badan oo iyaga ka mid ahi waxa maskaxdooda buuxshay fikrado duugoobay oo laga baxay waayo hore. Waxay run u qaataan haddii in yar la ammaano ama lagu dhaho waad qurux badan tahay. Dumarka noocan ahi waxay isu maleeyaan in ay yihiin ta keliya ee ifka saaran, iyagoo run u qaata xayeysiisyada afka ah ee aan qalbiga jirin ee ka imanaya dadyowga bini'aadamka ah. Waxaa laga yaabaa in maalin ay filter u isticmaashay sawirkeeda, kadibna ay heshay falcelinno badan oo lagu tilmaamay ama loo sheegay sida ay u qurux badan tahay una jidh wanaagsan tahay. Hadalladaas afka ah ee dadyowga ka imanaya ayay run u qaadataa. Waxa ay dadku u noqonayaan muraayad ay isku daawato. Waa carruur si aad ah loo kharibay oo aan ku noolayn nolosha saxda ah ee koonkan taala. Qoyska ayaa sababa marka ay wax walba siiyaan ku soco mooye ka joogna aanay ku oran weligood. Wax kasta oo ay weydiisato qoyskeeda waxay ku helaysaa si fudud oo bilaa dadaal ah. Sidaas darteed, indhaha ay caalamka ku arkayso ama ay ku eegayso waa ka qoyskooda ee wax walba aayar la siinayo. Waxay isu haysataa boqorad wax agteeda wax walba la soo tuuminayo, waxaanay u haysataa in ay heli doonto nin sideeda oo kale boqor ah oo ay iyadu badbadasho hadba sida ay doonayso. Waxaa qarka ka tuura kalsoonideeda xad-dhaafka ah iyo dhiiranaanteeda waalida ah oo aan waxba ka horjoogsanayn. Dumarka qaar ayaa u nool wax walba waa macquul, halka raggu u jeedaan waxa suurtagalka ah. Qofna ma doonayo in uu ku mashquuliyo ama uu isku mashquuliyo wax ama waqtiga iskaga lumiyo wax aan macquul ahayn ama aan dan ugu jirin. 2, waxay ciyaaraan geemiska ama ciyaaraha giimamka. Dumarkani waxay geemiska u ciyaaraan waqtiyo badan si ay u dareemaan ama ay isaga dhigaan sida ragga oo kale. Waxay isu haystaan in ay dumarka ka sareeyaan oo ay ragga ayay isbarbar dhigaan. Waa kuwo jecel waxyaabaha raggu sameeyo in ay sameeyaan. Kama aha in ay jecel yihiin geemiska, balse waa iska saraysiin dumarka kale, iyaga oo isu haysta in ay wax dheer yihiin. Waa kuwo iska socda bilaajiho, waxaana ay rabaan in ay arkaan adiga oo eryanaya si ay kuu tijaabiyaan. Waxay aad u jecel yihiin ciyaarta xanta, iyaga oo isku haysta kuwo awood leh oo wax khalkhalin kara, foodana abuuri kara, dadkana madaxa isu gelin kara. 3, cayda iyo ceebaynta dadka kale. Waxaa laga yaabaa in ay adiga iyo qof kale idin soo dhex gasho, kadibna adiga aad kuu liido, iyadoo isku dayaysa in ay qanciso qofka kale. Waxay ula dhaqmaan mudalabka iyo shaqaalaha goobaha ay tegayaan si aan wanaagsanayn, iyagoo ula hadlaya ama ula dhaqmaya si liidata oo muujinaysa qiimahooda hooseeya. Dumarka qiimaha liita waxay caayaan oo ceebeeyaan dadka ay la joogaan, halka iyaguna isbarbar dhigaan ragga qiimaha sare. Waa kuwo aan ka xishoon liididda iyo hoos dhigidda dadka kale, kuwaasi oo ah ficilo dhalanteeda, balse iyadu waxa ay dareentaa in ay xaq u leedahay qaab nololeedka sare. Haweenku ragga waa ay ka daciifsan yihiin jir ahaan. Haweenka noocaas ahina waxay dareemaan xanuun sida ay isaga dhigayaan rag. Inta badan dhaqamadooda xun ayay isku dayaan in ay ula tagaan ama ay ula doontaan xubnaha qoyskooda ama lamaanahooda. Marka warkooda laga maqli waayana
ama layska dhaga xiro, waxa ay ku qayliyaan ama ay bilaabaan in ay qofka aflagaadeeyaan. 4 waa kuwa qaylo badan oo aan si cad waxba u sheegin. waxay mar walba ama aad mar walba ka maqlaysaa qaylo dhan oo ka soo yeelaysa dhinaca dumarkan oo muuqaal iyo waxaan macno samayn ahayn ama aan macno weynayn ku qaylinaya. dumarka noocan ah dareenkooda ayaa ka sareeya xaqiiqooyinka. waxay dareemaan caro saayid ah, sidaa awgeed waa mid war walba isla saxan oo aan ku dhiiranayn in ay qaladkeeda aqbasho ama loo sharaxo. dumarka qiimaha hooseeya waxaa ka maqan xirfadda wada xidhiirka bulshada, mana awoodaan in ay dadka ula xidhiiraan si wax ku ool ah oo hufan. waxa ka luma oo aanay aqoonba isticmaalka ereyada habboon iyo qaabka wax loo sharaxo si loo xaliyo dhib kasta. waxa ay jeceshahay buuqa iyo qaylada, wax kasta oo ay sababayaanna waxa ay jeceshahay in ay wax fadeexadayso oo ay iyada kugu qaylinaysa ay dadka kugu ceebaysato. noocyada dumarkani waa qaar bilaa weji ah oo aan cidna dan iyo muraad toona ka lahayn. wax kasta oo la soo gudboonaadana waa kuwo ku dhaqaaqaya. dumarka noocan ah haddii aad xiriir la samayso waxay kaa dhigi doonaan maxbuus. waa kuwo aan buuq iyo qaylo marnaba kaa daynayn. 5 waa kuwo guurku ka xumaaday ama xidhiirkoodu. waxaa laga yaabaa in ay xidhiir galaan ama ay guursadaan iyagoo aan si buuxda diyaar ugu ahayn. waxaana dhacdaa in ay xidhiirka gudihiisa uur qaado oo ay la sulucdo ilmahaas, ninkiina kaga baxsado ama ay isku qaataanba. guurka kabkabka ahi ma sii waaro badanka, kaasi oo aakhirka ku dambeeya furiin iyo in la kala magaalaysto. dumarka noocanahi badanka inta ay ilmaha ka tagaan ayay suuqooda galaan. waxaana dhacda qaarkood in aanay sheegan oo ay dafiraanba in ay wax dhaleen. marka dambe hore uma guursadaan. waa kuwa sheeko badan oo aan dantooda aqoon, balse ragga sida shaararka u kala bedesha. waxaa laga yaabaa in ay maalinba nin la socoto, wakhtina la qaadanayso oo ay iskala baashaalayso. qaar kalena waxaa laga yaabaa in ay nolosha ka dhacaan oo ka niyad jabaanba. ragga dhammaantiina u arkaan cadow, noloshoodana ay uga quustaan khalad yar oo ay mar galeen, kaasi oo ay kaantarooli kari waayeen dareemadooda iyo caadifadooda. waxaa laga yaabaa in ay heefaan ilmahaas yar, balse isagu khalad ma leh oo iyaga ayaa sabab u ahaa in bilaa qorshe iyo qalad uu ku yimaado dunidan. waxaa isbarbar dhigtaa qof dumara oo sifo sharci ah ku guursatay, kuna ilmo dhashay, haysatana nin wanaagsan iyo nolol wanaagsan. waxay isku qancisaa in raggii wanaagsanaa dunida ka dhammaaday. wax walba oo maankeeda ka guuxa, khayaalkeeda maskaxeed ayaa uga jawaaba. mataqaan xulashada ragga iyo sida dhabta ah ee loo diyaargaroobo ama loogu diyaargaroobo nolosha wanaagsan. 6 waa mid bilaa qaab ah. jirdhisku waa sifo weyn oo ka mid ah sifooyinka quruxda iyo soo jiidashada u sameeya dumarka. qofka caafimaadka qaba ayaa ah mid soo jiidasho badan ka aan caafimaadka qaban. sidaas darteed aragtida qofka ayaa kor u kacda marka loo eego aragtida jireed. dumar badan ayaa kaliya yaqaan sida wax loo cuno, miisaankeeduna saa'id uu noqday ilaa baruurtu isdul fuushay, halka qaar badani ay yihiin ama lafo ama kuwo aad u caata ah oo muuqaalkooda laga naxayo. labadaniba waa kuwo aan caafimaadka iyo jidhkoodaba daryeelin. naftooda ma qadariyaan, sababta oo ah isma daryeelaan. ma joojin karaan cuntada badan ee lagu cayilayo, mana samaynayaan jimicsi iyo miisaan dhimistoona. halka kuwa caatada ahi aanay naftooda ka warqabin sida caafimaadkooda, cuntadooda, biyahooda iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa laga yaabaa in nafaqa la'aan iyo dhiigyari dhakhtarka loo dhigo. badanka waxaa dhacda in ay hawl nafta iskaga jaraan oo habeen iyo maalinba ordayaan oo aanay ka warqabin ama aanay wakhti gelin naftooda. dumarka noocan ahi waxay u nugul yihiin xanuunada iyo cudurrada kala duwan ee sifooyinkaas ku iman kara. waxaynu noolnahay wakhtigii ugu yaabka badnaa oo dad badani u geeriyoonayaan dhibaatooyin la xiriira buurnaan iyo miisaankoodu aad u kordhay, halka qaar kalena u dhimanayaan gaajo. waa mid la yaab leh oo sannadahan dambe aad u soo xoogaysanaysa. 7 waa kuwa daciif ah. dadku waxa ay noola dhaqmaan sida aan ula dhaqmayno nafteena. kuwana waa ayna ixtiraamayaan, halka kuwa kalena ay liddi ku yihiin. dumarkani waa kuwa aad u liita, sababtoo ah nolosha waxaad helaysaa waxa aad xayeysiisato. iyagu ayaa isqiimo tiray. lagama yaabo in aad ula dhaqanto sida qashin oo liita oo kale mooye si aan ahayn. waayo qof qiimo hooseeya cidina ula dhaqmi mayso si wanaagsan. heerka ay isdhigeen oo liidnimadooda
ayaa lagula macaamilayaa. Malaha awood garasho oo u qaabaysan in ay is adkeeyaan, kalsoonidooda xad-dhaafka ahina waxa ay ka dhigtaan nacasiyo, waayo waxba ma xeeriyaan kamana xishoonayaan. 8 dhaawac hore oo aanay xalin ayaa dhiba. Waxaa jira balaayiin dumar in ay ku nool yihiin caalamka, waxaana ay soo mareen caruurnimadoodii marxalado kala duwan oo qalafsan, qaar ay ku jirto, qaarna waxa ay la kulmeen xidhiidho hore oo aanay naftooda ku hormarin. Ma laha awood ay ku ilaawaan ama ay ku xaliyaan dhaawacyadii hore ee ay soo mareen, si aanay culays iyo warwar ugu noqon waqti xaadirkan ay joogaan. Dumarka qiimaha hooseeya had iyo jeer waa kuwa ka warwara waxyaabo ama dhacdooyin ay hore u soo sameeyeen. Mararka qaar waa kuwa quus isla soo taaga ilaa nolosha oo dhan ay ka quustaan. Ma laha awood ay isku ilowsiiyaan kuna saxaan qaladaadkoodii hore. Marar badan waxay isu arkaan iyaga oo wadooyinkii hore ee qaladaadka badan ay ku galeen ku taagan. Waxay ka warwaraan daqiiqad kasta iyaga oo ka mid ah noloshoodii dhaaftay ficiladii ay sameynayeen. Ma yaqaanin wixii hore ilow oo nolol cusub bilow. Sax khaladaadkaagii hore, waddo cusub iyo dariiq cusubna jeexo. Wax kasta oo ku dhacay hore adiga ayaa sabab u noqon kara ka bogsashadooda, balse cid bannaanka ka ah kuma xalin doonto, kumana ilowsiin doonto dhibaatooyinkaaga. Mustaqbalkaaga adiga ayuu gacantaada ku jiraa, adiga ayaana jihayn kara. 9 waa kuwo isxakamayn badan, masayr badan oo aan runta aqbali karin. Dumarka qaar waxay ku mashquulsan yihiin isxakamayn, mana awoodaan in ay muujiyaan kalsoonidooda iyo in la aamini karo. Waa kuwo naftooda xakameynaya oo baqanaya had iyo jeer, kartidooda aan muujin karin. Kalsoonidoodu waa shay qaali ah oo ay kugu qiimeynayaan asxaabtaada, bulshada iyo dadka aad la shaqaynaysaba. Markaad kartidaada muujin karin ee aad cabsanayso, taasi waxa ay ka imanaysaa kalsooni darro shakhsi ahaaneed oo qoto dheer. Dumarka qiimaha hooseeya had iyo jeer waa kuwa aad u masayr badan oo masayrkoodu xad dhaaf yahay. Had iyo jeer waxay daba galaan taleefanka ninkooda, waxay isku mashquuliyaan isaga, waxay leeyihiin yaa la hadashay, xagee ka timi, maxay kaa soo eegaysaa naagtaasi, iyo waxyaabo la mid ah. Waxa ay ka guuxayaan maskaxdeeda iyo maankeedaba. Waxa wareer ama warwar iyo buuq ku fura waa isku taxalujinta iyo dabagalka ninka. Had iyo jeer waa kuwa isku buuqsan oo mar walba si been ah maskaxdooda ama mala bala awaal ah oo been ah oo aan xaqiiqada ku dhisnayn maskaxda u buuxiye. Halkii ay danaheeda raacan lahayd, waxay ku mashquulsan tahay ka fikirka iyo khayaalka ninkeeda oo laga yaabay in uu baanto dhan iyada u maqnaa una soo shaqaynayay, iyada oo marka uu albaabka ka soo galo ku bilaabaysa dagaal, buuq iyo waxyaabo aan loo baahnayn. Qofna nolol reer lama wadaagi karo qof aan aaminsanayn oo ku kalsoonayn. Dumarka qiimaha hooseeya waa kuwa bilaa aaminaad ah oo had iyo jeer ninkooda daba jooga, taasi oo aakhirka sababta in uu gurigeedu burburo. Marka ay ogaadaan xaqiiqda dhabta ah iyo runta, waa kuwa ka shalayn badan oo qoomamo badan oo haddana runta aan aqbali karin. Kuwaasi oo marka ay dareenka shalaynta iyo qoomamadu dhaafo, halkoodii ka sii miista hawsha. 10 waqti dheer ayay haasaawe sameeyaan ama ay ku lumiyaan. Dumarka qiimaha hooseeya waxay isu haystaan inay qiimo sare leeyihiin, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ay niman badan la sheekaysato, kadibna hadiyado u keenaan ama safar u raacdo. Nimankaas oo laga yaabo in ay yihiin rag lacag haysta, balse ujeedadooda iyo sheekadoodu toona ma aha inay gabadha guursadaan ee keliya waa in ay si xaaraana baahidooda jireer uga fushadaan, kadibna ay dibadda dhigaan oo xiriirka u jaraan. Waxa iyana u wareegtaa mid kale oo saaxiibkiisa ama asxaabta ka agdhow. Waxay halkii ka bilowdaa xiriir kale oo hor leh, kuna dhisan baahiyo gaar ah, kaasi oo marka laga dangaaro ama laga dhammaysto si uun ku dhammaanaya. Waqti dheer ayaa kaga luma hadba sida ay xiriir ula samaynayso, kaasi oo aan midna wax natiijo ah ku dhammaan. Kaliya nin walba waa nin baahidiisa gaarka ka fushada, iyaduna marna ma garato waxa danteeda. Waa qof isu haysta qof sare oo khiyaal dhex dabaalanaysa. Waqti badan ayaa kaga luma xidhiidho iyo shukaansiyo maalayacni ah oo aan midna guur iyo guurgal ku dambaynayn. Iyana waa moog dhoohan oo aan waqtiga iyo waayaha markaas ka warhayn. 11 waxay is hagaajiyaan kaliya markay xaflad ama bannaanka aadayso. Dumarka liita waa kuwa dadka iska dhisa oo aan muhiimad weyn siin naftooda, caafimaadkooda. Waxaa laga yaabaa in ay caawa xaflad tegayso, kadibna waxa jahwareer ku noqonaya dharkii ay xidhan lahayd, kabihii ay gashan lahayd. Waxaa la fool xumaanaya dharkeedii iyo kabaheedii, waxaana isku dayaysaa
in ay saaxiibteed ka soo ammaanaysato dhar. Waxaa laga yaabaa in ay iyadu saaxiibteed ka dhar qurux badan tahay, ka dhar badan tahay, kana dhar wanaagsan tahay, balse kalsoonideeda daciifka ah ayaa u geynaysa. Waxaa saacado badan kaga lumaya ishagaajin iyo isfiirfiirin. Waxay u yeerisaa dadka hareeraheeda jooga, waxaabay dhahaysaa ka warrama sidee ahay dharkan, ma isku beddelaa, ma ku wanaagsanahay, sidee ku ahay, iyo waxyaabaha la midka ah. Isma qiimeyn karto iyada oo welibana muraayadii hortaagan. Haddii ay dhar ama kaba dooqanayso, waa mid bilaa dooqa oo ku dhex wareerta alaabta saacado ama waqti badan ayay ku qaadataa in ay iibsato shayga ay ku qanacsan tahay. Waxay soo wareegaysaa ama ay ku soo wareegaysaa dukaamada oo dhan, haddana wax qanciya arki mayso. Waxay soo kaxaysaa saaxiibteed si ay ugu dooqdo waxay u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa in ay u soo dooqday shay ama ay tiraahdo kaas qaado. Kadibna marka ay xaafadda la tagto saaxiibteed ayay hadal canaan iyo hadal kulul kala duldhacaysa iyadoo ku eedeynaysa in ay wax xun u dooqday. 12 dareen wax istabamarineed ayay leeyihiin. Dumarka qiimaha hooseeya waa kuwa dabino iyo khiyaamo badan. Marka khaladaadkooda lagu qabto ama lagu arko waa ooyaan, iyaga oo dareenka dadka ka ganacsanaya si loo dhaafiyo sheekada ama baabkaas looga xiro. Wax dhiba uma arkaan in ay been sheegaan mar walba si ay u helaan wax walba ay u rabaan ama ay u baahan yihiin, sababtoo ah waxay rabaan inay ku gaasiraan. Dumarka noocan ahi mar walba waxay ciyaaraan kaarka dhibanaha, kaasi oo ay mar walba xoqdaan, waxaana eedda dusha ka saaraan dadka kale si ay dareenkaaga uga ganacsato. Waxaa laga yaabaa in ay ku dhahdo maxaad ii dhibaysaa, maxaa u samaynaysaa, si ay isku dhaafiso ama uga badbaadaan xaaladda xun ee taagan markaas. Dumarka noocanay wax tixgelina uma hayaan runta, waxaana ay ka doorbidaan in sideeda oo kale dadku ay iska noqdaan oo ay iska indhatiraan xaqiiqada. Dumarka noocan ahi waa kuwa hadallada leexiya iyagoo raba in raaligelin ay ku helaan. Marka ay heshana waxay isku qanciyaan in ay saxan tahay oo ay saxnaanshiyeeda wax walba ku kasbatay. Waxaana u sii jahaysataa in ay xaqiiqooyinka soo socda oo dhan leexiso, mar walbana ay isku daydo in ay majaraha habaabiso. 13 waxay daneeyaan soo jiidashada dumarka kale. Waxay isu maleeyaan dumar sare oo qiimo badan. Waxay iska dhigtaa mid mar walba nolosheeda ku faraxsan oo nolosheeda waxa ay muujisaa farxad. Waxay muujisaa inay tahay mid haweenka kale ee qeyrkeeda xadheer. Dumarka qiimaha hooseeya waxa farxadda u yaqaanay waxyaabaha maadiga ah sida lacagta, dharka, meelaha ay tegayso iyo waxyaabaha la midka ah. Dumarka noocan ahi waa kuwa xitaa jacaylka ninkooda ku qiimeeya ama ku saleeya waxyaabaha maadiga ah. Yacni haddii aanu soo iibin ama aanu ii soo iibin kabaha magacaa leh ama faraantiga noocaasa, macno ma leh ama ima jecla. Jacaylkeedu waxa uu ku salaysan yahay waa maadi. Waa sababta ay u rabto in ay dumarka kale u soo jiidato iyadoo tusaysa waxyaabaha maadiga ah, jacaylkana uga dhigaysa in uu yahay maadigaasba. Waxba kama gelin in aad faraxsan tihiin, noloshiinana ku qanacsan tihiin. Kaliya iyadu waa mid dadka iska dhisaysa si ay u soo jiidato dumarka kale ee saaxiibadeed ama soo booqanaya. Waa mid tusaysa waxyaabaha maadiga ah ee haysato. Wixii ay maskaxda ku qabsan karto waa ay ku dadaalaysaa, war iyo sheekana way ku daldalaysaa. Nolosha iyo lamaanaha waxay ku soo koobtaa kaliya maadi uun in la kala helo. Waxay ninkooda ka dalbadaan dumarka noocaasi inuu hadiyado qaali ah u keeno, inuu meel caan ah u dalxiis geeyo. Ujeedada kaliya ee waxaas ay ka leedahayna waa inay isku soo sawirto oo ay dhahdo milheblaayo ayaa waxaas laga keenay, kadibna baraheeda bulshada soo dhigto sida Facebook, Instagram ama WhatsApp status. Kaliya waxay jeceshahay in ay samaysato nolol khiyaali ah oo hawo raaca, taasi oo ay doonayso in ay dumar badan ku duufsato oo kooxdeeda ka soo mid dhigto. Dumar badan oo isna talaabadan qaada waxa ka burbura qoysaskooda, waxaana eedda saaraa ninkooda iyagoo tusaale u soo qaadanaya qoftan oo kale. Muhiim uma aha in ay wax yar khaas u ahaadaan. waa kuwo mid walba ama wax walba nolosheeda ku soo kordha ama ay haysato banaanka soo dhigaysa siiba baraha bulshada si ay dumar badan u soo jiidato. Waa mid ninkeeda waqti badan la qaadan, balse kaliya isku soo sawirta dadkana u muujisa in ay ku faraxsan tahay, waqti badan wada qaataan. Dadkana si kale ayay ugu turjintaa oo ah siyaabahaas. Waxay soo haysataa qoftan oo kale in ay dumarka kale ka sareyso haysashada maadiga badan ee ay soo bandhigayso, balse garaadkeedu ma siinayo in ay jiraan kuwo wax ka badan haysta oo aan cidna iska tusin, balse nimcadooda Ilaahay ugu shukri naqa. 14 wax qorshaha nolosha kama laha. Dumarka qiimaha hooseeya waa kuwa iska nool oo aan noloshooda wax xiigsi iyo yool ah lahayn. Waa kuwa marka aad aragto u dhaqmaya sida in ay beri aanay jiri dooninba.
dumarka noocan ahi wax qorshe ah ma leh haba yaraado ama ha weynaado. haddii ay guur u diyaar tahay ma garanayso waqtiga shaqada horumarka ay ka rabto, ma garanayso sababta ay cid ula hawsawdo, ma garanayso hooyo naca ah ayay doonaysaa inay noqoto, ma garanayso. waxaa laga yaabaa in aanay wax nacafi u leh ama nafteeda anfacaya oo ay miraheedii guratay aanay samayn 15 sano ee u dambeeyey. waa qof weyn oo aan shaqaysan, haddana aan reer lahayn, kaliya iska soo kacda, internetka isticmaasha, qosol iyo sheeko maala yacni waqtiga ku rida, waxay tagtaa xafladaha iyo aroosyada, suuqa ay iska soo wareegtaa, kadibna way iska seexataa. waxay iskaga jirtaa nolosha wareegtada ee aanay waxba isbedelayn maalin walba. sidaasay ku weynaataa oo ku mustaqbal iyo guur seegtaa. maalin ayaa la canaantaa ama iyadu isku canaanataa, kadibna waxa ay xoog u kaca dareenkeeda caadifadeed. markaas ay isweydiisaa, ma waxbaan bartaa, ma ganacsi baan bilaabaa, ma shaqaan tagaa. xamaasadii ayaa ka guurta iyadoo aan wali su'aalihiisaga jawaabin. kadibna sideedii hore ayay wax walba ku noqdaan. 15 waxa ay rabaan in ay markasta saxsanaadaan. dumarka qiimaha hooseeya ma jecla inay xaliyaan khilaafaadka, waxay jecel yihiin iyagu mar walba isla saxsanaadaan oo cidda kale daalac loo raaco. waxay jecel yihiin in mar walba iyagu loo arko in ay yihiin kuwa khalad la, mana rabaan inay qartaan waxa ay khaldeen. waxay kugula doodayaan wax kasta oo ay khaladaadkooda ku dhigi karaan ama iskaga dhigi karaan kuwa bari la. kama daalayaan in ay isu arkaan in ay mar walba saxan yihiin. wax kasta oo ay kugu tusi karayaanna waa ay samaynayaan, sababtoo ah waxay ka cararayaan guuldarrada iyo garashada khaladaadkooda. dumarka noocan ahi waxa daashaday muran joogta ah, yar iyo weyn uma kala eegayaan dadka, kaliya jidkeeda unbaa u cad. dumarka qiimaha hooseeya uma haystaan qayrashada khaladaadka iyo sixitaankoodu in ay tahay ama ay ka dhigayso qof xoog leh oo waayo aragnimo iyo casharo kala duwan nolosha ka baranaya. haddii ay koox la shaqaynayso, waxa kooxda hoos u dhigaya waa mucangagnimada iyo indha adeegeeda aan meel loo dayin. waxaa mid aan ka xishoonayn in yarna khaladaadka dadka kale u wada muuqanaya, balse iyada aan u muuqanayn. muuqaalkeena intaasin kusoo gabagabeynaa. haddii aad ka heshay fadlan halkanna soo gaartay like saar muuqaalka, sidoo kale janaalkeena kusoo beero subscribe saar. saaxiibayaal mahadsanid, aniyo muuqaalka xiga. salaamullah.